kulanti wanaagsan dhamaantiin badaawadayaal meel walba oo aad joogtaan halkani waa Somali Freedom aniguna waa Idris Iimaan ku soo dhawaada muuqaal cusub wali waxaan halkeedii ka sii wadnaa warbixinada taxanaha ah iyo muuqaalada gaarka ah oo aan ugu tala galnay daawadayaashayda qiimaha badan ee aanu goor kasta u soo gudbino waxaynu halkan uga hadli doonaa haddii ay raali ka noqdo sheekooyinka iyo xogaha ku gadaaman dhibaatadii loo geystay hobalada heesaaga ah ee Safiya Tusma oo kamid ah gabdhaha fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhawaanahan sheekadeedu ay qabsatay baraha bulshada warbaahinta iyo sidoo kale goobaha dadka gaarka ee dhalinyaradu ay isugu yimaadaan. Safiya Tusma waxay la kulantay mid kamid ah dhacdooyinkii ugu xanuunka badnaa ee nolosheeda sida gaarka u saameeyay, laakiin tani waxay qayb ka tahay tacadiyada joogtada noqday ee haweenka goor kasta ay la kulmaan. Tani ma ahan mid cusub, mana ahan wax ugub ah, waa dhacdo soo jirtay dhawaanahana si weyn u soo shaac baxday. Dad badan ayaana caado ka dhigtay inay door ku yeeshaan dhaqamada duliyeynta iyo dhibaataynta dumarkii sharfanaa ee karaamaysnaa. Safiya Tusma uguma horeynin gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee loo gafo ee dabcan sharafkeeda iyo karaamadeeda gaarka ah loo guda galo oo wax laga sheego, laakiin waxa ay qayb ka tahay tirada haween ee la dhibaateeyay ee la sumcad dilay ee xogahooda gaarka ah oo aysan ahayn in bulshada si toos ah loo tuso lala wadaagay. Rag ay aamintay iyo kuwa si qaldan ku baadigoobay ayaa tacadiyada kan isugu tagay oo qayb ka ah, waana hawl jirtay oo taagan sida ka muuqata. Mana ahan wax hadda bilaabmaya ama hadda ugub ah, waana caado ay tahay in laga wada shaqeeyo dabarjarkeeda iyo sidii dabcan guud ahaanteeda looga takhalusi lahaa. dadka waxgalka waxay leeyihiin dulqaad muuji maama Safiya Tusma, adduunku waa imtixaan. qof walba oo bini aadan ah khalad waa ka dhaca oo qof aan qalad lahayn ma jiro. qof walba ceebihiisa waa u qarsoon yihiin. haddaad ku faraxdo ceeb walaalka walaasha adigana taada oo goor ay tahay aadan ka warqabin in lagu farxi doono u diyaar garow. qof walaasha ah wax walba idin dhex maray haddii aadan waxba isku ogeyn marnaba kuma dhiiranaysid inaad ceebihiisa banaanka keentid oo waad u qarin lahayd. si walbana ninkaasi waa dulmilow aan waxba u reeban gabar walaashiis ah oo aan Soomaalinimo, walaalnimo iyo muslimnimo u dhowrin. midda kale warbaahinta qaybtood ayaa arrimaha kan lagu xaqliyaa oo la dhaliilaa qudhooda doorkooda iyo kaalintooda saliimka ah, waana la tuhmaa inaysan door saliima ciyaarin oo badbaado iyo sharaf dhowrid haweenka iyo hablaha gaarka ah. dadka qaarkii waxay qirayaan inay tani tahay wax jiray oo socotay. muuqaaladii ugu dambeeyay iyo xogaha gaarka ay la sameeyay intuba waxay wada qirayaan inuu jiro dacadi gaar ah iyo gabood falla guud oo ay haweenku indhaweydba mutaysanayeen. muuqaalo si ku talagal ah loo baahiyay iyo kuwa si ku talagal ah ku soo baxay intuba dadku way arkeen. kuwa ay tahay in la qariyo oo laga dhowrsadana waa la soo bandhigay. kuwa ay tahay inaan duni iyo dadba la tusinna qaybtooda waa la arkay. Safiya oo waraysi bixisay waxay muujisay inay indhaweydba dabcan dhibana u ahay dad badan oo sharafkeeda iyo karaamadeeda wax u dhimayay. waxaana ay muujisay inay tani iyadu istustay inay tahay imtixaan gaara oo ku socda, laakiin haween iyo sidoo kale dad badan oo Soomaaliyeed ayaa u muujiyay barbaristaag iyo sidoo kale inay tani tahay wax iska dhaca oo nolosha aadamiguba ay qayb ka tahay, laakiin aysan iyadu mar walbaaba ku kadsoomin dhacdooyinka caynkan oo ah. ninka la tuhmayo oo dabcan mar ay aad isugu dhawaayeen dadna ay leeyihiin dabcan waa uu qabay oo oori bay u ahayd, isaguna oday buu u ahaa, dadna ay lahaayeen xiriir iyo sidoo kale dabcan haasaa wadaag bay ahaayeen, qaarna ay waxyaabo kale sheegayaan ayaa ah qofka ugu badan ay farta ku godan tahay. laakiin isaga qudhiisa oo warbaahinta u waramayna waa iska fogeeyay eedeymaha jira iyo hadallada kala duwan ee dabcan loo jeedinayo. waxyaabaha kale waxaa kamid ah dabcan isagu waxa uu leeyahay anigu shaqo kuma lihi wax la iga sheegay, laakiin Safiya Tusma marka ay waramayso waa dareemaysaa inay wax jiraan, waadna fahmi kartaa in meesha uu wax ka jiro. laakiin dad kala duwan oo labada qolo gabadha iyo wiilkaba ka madax banaan oo aanu raadinay, qolyo gabadha yaqaanay qolyo wiilka yaqaanay, intuba waxay noo sheegeen in sheekada si un ay u jirto. marka la fiiriyo sawirro la helay waxay tilmaamayaan isu soo dhawaanshiyaha Safiya iyo wiilka. kuwa kale waxay muujiyeen inay aad kalsooni u jirtay iyo dareen kale oo gaar ah oo ay dadka qaybtood malaha si gaar ah u qeexayaan ama ay uga waramayaan. si kastoo ay tahay tani ma ahan dhacdo ugub ah, mana ahan waxa hadda bilaabmay, mana ka dhigna inay tahay gabagabo oo aysan haween damba sharafkooda lagu dabcan xadgudbin.
سلامي دا waxaa jiray muuqaalo hobolo kale lagu xadgudbay sida Safiya Tusma ay kamid tahay Nasteexinda ay kamid tahay sidoo kalena ay kamid yihiin dabcan DJ Subayr iyo shakhsiyaad kale oo hablo iyo sidoo kale ragba isugu jira oo qaybtood ba iyagu yiraahda muuqaalada iyada waa la xaday waa la jabsaday si aanu raali uga ahayn baana lagu dhibaateeyay qaarna waxay leeyihiin dhammaan isku dayada kani waxay ina tusinayaan xanuunka jira iyo xaaladaha gaarka ah ee taagan laakiin waxay ku fikirayaan inay jirto waqti iyo sidoo kale xilli gaar ah oo ay soo gabagaboobi doonto sidoo qorshuhu yahay Safiyo waxaa lagu tiriyaa inay kamid tahay haweenka hablaha ah ee hobalada ugu afka gaaban oo aad loo qadariyo sharafkooda iyo karaamadooda laakiin haatan dhibaatadan iyo tacadigan ayaa saameeyay oo ay qayb ka tahay sida ka muuqata waxaase ay maanka ku haysaa in dulmigan iyo gaboodfaladan looga horeeyay oo haween badan iyaguna sharafkooda lagu xadgudbiyay oo si gaar ah iyo si ku talagal ahba loo dabcan dhibaateeyay iyaduna ay qayb ka tahay haweenkaas la dhibaateeyay ee waxyeelada loo geystay sida Safiya ay rumaysan tahay waxaase ay qiraysaa inay ka soo kaban doonto oo waxay leedahay dabcan xayndaabka iyo diinta iyo sidoo kale fahamka aan ka haysto islaamnimada ayaa sharafkayga badbaadinaya oo dabcan noloshaydana door ku yeelanaya waxaan rajaynayaa inaysan noqon daawada maxay kula tahay sida arrinta tan loo cirib tiri karo waxaan u baahanahay inaan la nimaano talo iyo tashi guud oo arrimaha kan haweenka gaboodfalada iyo tacadiyada iyo dhibaatooyinka loogu geysanayaba aan uga gudbi karno talo ma jirtaa oo aad rumaysan tahay in arrimahani lagu soo gabagabayn karo la wadaag saaxiibadaada kale waad ku maasantihiin daawashadeena nabaddiino